أنا وقوها الله يأفك مدحوينها جمهورية الصوماليلان أفك حكومة يا أفك جدّجا مدحوينه أحر صاري arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinac fadhino in ay xukuumadda Soomaaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bila shuruuda aanu ku dhawaaqno dhanka iyaga haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid وحلا وحي لو كلا دوين يهي قوم كستا يا ميل كستا يا وقت كستا حكومة الجمهورية الصومالية وحي ديارو طاي إن أي أرنتا ميسكا وذا هذا الكتماتو أو لقوا وذا هذا وحي لو كلا دوين حنقا ما بحيا هذا الكيغا لبعضها شرتا حد بميشا مركا أي تاغن تهي أي أغيرتا ما أنت هالكا أي تاغن تهي هذا كو أفقبرنو كلجين قول بينو ذا شوقنا موحي لو عفابة وخسارة كبضا أما كبلاران كيوري أنه عندنا دن كستا أطابنا يا خسارة وحنكو علينا يا دولة جمهورية الصوماليلان waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabadda joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka hogaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arintani dhimayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mid qaataan oo ay xabadda bila shuruud ku joojiyaan miiskana la isugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwanahay waxaanu baqaa islaanahay waa mid xambaarsan nuxurkii dawladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa maamulka ee nuxurka dawladnimo xambaarsan iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Lascaano